بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: وللقراض 4 شروط. qiraadka waxaa la yidhaahdaa waa shirkadii nooc ka mida shirkadii xoolihii la isku darsaday ee lagu ganacsanahay soo sheegnay shirka inay yihiin nooc ka mida shirkadu marka waxa weeye waa in xoolo iyo xoog la isku darsado bimacnaa labada ruux midna xoolihii buu leeyahay midna wuu ku shaqaynayaa faa'iidadana waa la qaybsanayaa qiraad baa loo yaqaanaa shaaficiyadu qiraad bay dhahaan muqaaradana waa la yidhaahdaa madaahibta kale qaar ka mida sida xanaabilada iyo mudaarabay dhahaan marka mudaaraba iyo qiraad waa isku mid isticmaalka unbaa kala duwan. ayib walilqiraadi qardi ma aha qardigu waa daynta laakiin qiraad haddii la yidhaahdo ama muqaarada la yidhaahdo markaasi waa ganacsigaas wey. walilqiraadi waxaa u sugnaaday in xoog iyo xoolo lagu shirkoobo ganacsiga noocaasa waxaa u sugnaaday 4 shuruuطin 4 shardi. shardiga koowaad waxa weeye an yakuuna waa inuu yahay calaa naadin lacag caddaan ah korkeed oo min addaraahimi dirhamyaal ah waddanaaniiri iyo diinaaryaal ah. lacagta marka hore ganacsiga la gelinayo ee ninkani ku shaqayn doono waa inay tahay lacag caddaan ah. somaynaa sooman shirkadana saasaan kusoo marnay soo maa yacani naadiga waa lacagta caddaanka ah ee kaashkaa waa shardi wey. wa an ya'dana weeye inuu idmo maxaa la diidan yahay halkaa waxaa la diidan yahay waxa laguu dhiibaya ku shaqee lagu leeyahay inuu noqdo alaab ama badeeca noqdo ee uusan marka hore lacag ahayn maxaa yeelay badeecada hadhow qiimaynteedaa khilaaf ka imaanaya markii ama faa'iido la qaybsanayo ama la kala baxayo. shardiga labaadi waxa wa an ya'dana waa inuu idmo rabbulmaali xoolaha ninka iska leh lilcaamili midka ka shaqaynaya waa inuu u idmo fi tasarufi xoolaha inuu ku tasarufo mutlaqan shardi la'aan isagoon la kala qaadin. wuxuu ka wadaa labada nin ee mucaamaloonaya midna xoolaha leeyahay midna ku shaqaynayo midka xoolaha leh rabbulmaal baa la dhahaa midka ku shaqaynayana caamil baa la dhahaa. marka ninkan caamilkii xoolaha ku shaqaynaya waa in idan la siiyo oo idan cad uu yidhaahdo xoolahan ku shaqee idankuna waa inuu idan mutlaqa yahay oo uusan shardi ku xidhin. meeshan wuxuu ka saarayaa hadduu shuruud ku xidho ganacsigii cidhiiri buu keenayaa bay leeyihin. maalan inuu ku yidhaahdo badeeco mucayana inuu u xadido ama meel mucayana inuu ku xadido soomaa garan ama dad mucayana inuu yacni la ganacsado ama alaab ka soo qaado inuu ku xadido. taxdiidkaasi waxay leeyihin wuxuu keenayaa ganacsigii buu cidhiidhi gelinaya sidaas daraaddeed idan mutlaqa waa inuu siiyo. ayib wuxuu yidhi wa an ya'dana waa inuu idmo rabbulmaali lilcaamili midka ku shaqaynaya xoolaha waa inuu u idmo fi tasarufi xoolaha inuu ku tasarufo. tasaruf noocee ah altasaruf bilmaali fi lbayci waashira waa waxa loogu dhiibay inuu isticmaalo maa ee iibinta iyo rogrogidda waay waxa uu u helay mutlaqan asagoon la kala qaadinoo shardi lagu xidhay. aw amase fii ma shay ayib waa inuu u idmo fi tasarufi mutlaqan aw fii ma shay inuu ku tasarufo laa yanqaticu aanusan go-aynin wujuuduhu helitaankiisu haaliban sida badan. laba mid weeye markuu badeecada ganacsiga la gelinayo ku shaqaynayo inuu yidhaahdo wax alla wixii aad faa'iido u aragtay inaan ka helayno ganacsiga geli
تاوى مطلق أما هدو كحرها يميد قونية وإن النقطة وح انت بدن لهلي كرو أو فيما شيء لحدي لا ينقطع وسنقو أين وجود هلتان كيسو غالبا سيدا بدن وح سيدا بدن لهليو أن لوايين وهلتان كيسو وسنكقو أين السوقية يقولك لغا قنع سنة هدو كحرنا وأوكي يضن لكن هدو وح نادر كحره oo yiraahdo shayga naadirka yar ama lawaayba marmar inta halka uu kaga ganacso xoolaha halka ku rogrogaadu yiraahdo markaas waxa weeyaan ganacsigaasi ma soconayo shardi ba maqano sida midalan waxay yiraahdaan ku miisaaliyaan al-yaqut al-ahmar yaqutka as helitaankiisa naadir ah wax naadir oo lacagtan kaga ganacso haduu dhaho te in la waayo soo ma suuroobi karto way u badan tahay in la suuro in la waayo ninkana faa'iido raadinaya xoog buu bixinaya adigana xoolaha rabaa inaad wax ku soo saaraan marka shartigaasi shayga naadirka ku xidhaya ma yabeelay hadii uu shardi galayo shay qaaliba waa inuu noqdo helitaankiisu waa inuu badan waan yashtarita waa inuu shartiyeeyo ninkii xoolaha lahaa lahu ninka xoolaha ku shaqeynaya waa inuu u shartiyeeyo juz'an gabal macluuman oo la og yahay oo min ar-ribhi faa'iidada kamida faa'iidada say u kala qaybsanayaan waa inay caddahay gabalka uu ka qaadanayo faa'iidadana waa in la yaqaano asaguna yaqaano kana yaqaano طيب haday jahaala gasho faa'iidada qaabka loo qaybsanayo hadaan la cadaynin ya qiraadka iyo shirkadaasi waa baadil maxay yeelay jahaaladaasi bari muran bay keeni murankuna wax sharcadu ka cararayso warku waa inuu cadi sooma طيب فائدة قابكين لو حديديا waxa loo xadidayaa nisba lagu xadidayaa wax go'an lama ogola inaad tiraado xoolahan ku shaqee oo muxuu ahay faa'iido ka soo saar waxaadna ku leedahay hadaad ka dhigto wax go'an u magacawdo oo faa'iidadaad soo saarto ayaa waxaan ka siinayaa 100,000 ما صعنيس صوت معيت حاول لقيها وين الهلم ساس ترادد وين تراد فائدة الصوب بحذا يا النسبة عليه ضحي أنا النسبة صان له بس أنت قاسان له أنا بس أنت قاسان له يا بقول كيف أنت والله أنا بقول كيف أنت صان له هديو خسارة ما تصومها هديو كنا حيو قاعد خساري وحي خسارة حولها كوي ما دنا حولها يكون حياه adiguna xoogii dadaalkii wixii aad bixisay baad khasaaraysa waa duu khasaaray yimaado haday faa'iido timaadana say u qaybsan lahayn waa inay caddahay maxay ku caddahay nisba waa inay ku caddahay wax go'an maya waa ijmaac way wax go'an hadii la magacaabo qiraadkaasi inuu baatil yahay طيب وان يشترط انه شرطيه له isaga juz'an qabal oo macluuma la yaqaano min ar-ribhi kamida waxyaala muamalaadkii hadda magaalada ku badan waxa kamida waayahana la isku badhacaba ninba wuxuu leeyahay halkii milyan ba waxaan idin ka siinayaa 50 aniga bishii iga soo raaso 50,000 halka milyanna waa ku shaqeynay labadii milyanna 100,000 baan ka siinay ya muaamaladaasi waa muaamalo aan banaanayn riba ku jirto waa aqdi faasid rag waa weyn baan ku ganacsan qaar baa ka jooga la kari waayo lagu dhacay oo sagxada la diray laana riba ku jiraan aafada jirtaa waxaan waa inuu noqdo adeer faa'iidad soo saaraysa Soomaa faa'iidada basanti aduguna inta saadle anna inta saanle wax go'an maya wa alla yuqaddara wa ina la qadarin ganacsiga iyo qiraadkii waa inaan lagu qadarin bi muddatin muddo waa inaan lagu qadarin waa inaan la dhihin xoolaha waxaad ku shaqeynaysaa bil ama waxaad ku shaqeynaysaa sanad ama 2 sano waa inaan muddo loo xadidin hadii muddo loo xadido iyadana maya wala damaana shuruudaas u dhigay wala damaana damaanadi ma ahaanin ala al-aamili ninka xoolaha ku shaqeynaya korkiisa damaanadi ma ahaanin xoolaha ma damaanayo way illa bi udwaanin xadgudub mooye yadiisu maxay tahay marka yadu amaana saasoo maana yaani wax weeyaan xoolaha uu ku ganacsanaya gacanta ku hayo ku shaqeynayo agtiisa amaanay ku yihiin hadduu ku xadgudbo si khaldan u tasarruf
dadaal loo baahnaa ka gaabiyo sidaana xoolihii dhib ku gaadho wuu gudayaa isaga laga rabaa haddiise laakiin isagoo dadaalay oon gaabinin ama xadgudbin maqaadiir rabbi ku timaado markaasi laguma laha mana damaanayo bal haddaad ku tidhaahdo raasamaalkaygu ma khasaaro ani khasaaro diyaarumay raasamaalkayga mar walba waan rabaa ma garat faa'iidana iga sii maya laanna markaa waxaa ka dhananaya raasamaalkii oo isaga aad korka ka saartay dayn buu isu beddelaya marba haddii raasamaalkaaga uusan khasaara geli karin bimacnaa dayn aad ninkan ku leedahay bay noqonba xukunka saasuu yeelanaya dayn hadduu isu beddelana haddee dayn waxba lagama faa'iido soo ma faa'iidadu maxay ku timaadaa faa'iidadu waxay ku timaadaa raasamaalkaagu waa inuu khasaaro diyaar u yahay markuu khasaaro diyaar u yahay buu faa'iidana ka imaan karta oo xalaal noqon karta laakiin raasamaal aan faa'iido diyaar u ahayn oo shardi laga dhigo oo laga ilaashaday faa'iidada laga sugaayo waa ribo sababta isagii baa dayn isu beddelay macnaha marba haddii raasamaalka la damaano dayn buu noqonaya wabitaali wixii laga helay kaaga soo baxana waa ribo ayib walaa damaana cala alcaamili ninka xoolaha ku shaqaynaya korkiisa damaanadi ma ahaanin hadday xoolahaasi wax gaadhaan ama baaba'aan ilaa bicudwaanin xadgudub xaggiisa ka ahaaday mooye inuu isagu xadgudbaba mooye ayib waidaa goortii xasala uu xasilo uu yimaado ribxun faa'iido wa khusraanun iyo khasaara markuu yimaado jabara wuu kabayaa ama jubira waa la kabayaa alkhusraanu khasaarihii yaa la kabiyo biribxi faa'iidadaa lagu kabayaa maalan kaba soo qaad sanadkii ganacsigu idinka dhaxeeyey ayaa marna la faa'iiday marna la khasaaray maalan sanadka qaybtiisii hore faa'iido fiican baad ku dhufateen sanadka aakhirkiisii isagoon faa'iidadii la kala qaybsanin yaa haddana khasaaro weyn idinku dhacay maxaa la samaynaa faa'iidadii horeed hesheen khasaarahan dib ka soo baxay baa lagu kabayaa maxaa yeelay faa'iida waxay timaadaa markuu raasamaalku badbaado faa'iida sideeda waa saas faa'iida waa wixii raasamaalka ka baxsan raasamaalka marka hore la seefgarayn raasamaalka marka la seefgareeyo khasaarihii ku yimid la kabo markaa kadib hadday wax soo hadhaan baa la faa'iiday hadday waxba soo hadhi waayaanna maca salaamati illahi wa xifdi hala kala dhaqaaqo wax meesha ma yaalay ma nin baad raasamaalkiisa cuni hadaa faa'iido soo saari waaye soo ma sidaas weeyaan ayib faslun walmusaaqaatu jaa'izatun cala alnakhli waalkarmi halkan wuxuu ka gudagalay wax la yidhahdo musaaqaadka musaaqaadka waxa weeyaan waa sida qiraadkay ku yara dhowdahayoo beddelkii hadda lacag laysu dhiibto ganacsi la gelinayay tani waxa weeye geedaha la beero timirta iyo cinabka iyo kuwaasaa shirka lagu noqonaya maxaa shirka lagu noqonayaa nin geedihii buu leeyahay ninna geedihii buu ka shaqaynayaa waxa ka soo baxana waa la qaybsanaya musaaqaad waay ya isla warawsi waay isla warawsi musaaraca imaan doonto musaaracadu waa beeraha yaryarka musaaqaadkuna waa geedaha waraabinta uun u baahan sida timirta iyo cinabka iyo midhaha soo saara waay walmusaaqaatu isla warawsigii in geedaha la isla warowsado ninna geedihii iyo dhulkii leeyahay midna ka shaqeeyo jaa'izatun waa bannaan tahay cala annakli geedaha timirta korkooda waalkarmi iyo geedka cinabka cinabka iyo timirta labadaas baa lagu samayn karaa bay madhabku qabaa wixii kale maya walahaa waxaa u sugnaaday musaaqaadka shartaani laba sharti axaduhumaa labada sharti midkood waxa weeye an yuqadiraha musaaqaadka waa inay qadaraan labadii heshiisay labadii heshiiska wada gashay waa inay qadaraan bimuddatin muddada waa inay ku qadaraan macluumatin oo la yaqaano halkaa way kaga gediseen mudaarabadii soo ma qiraadkii muxuu yidhi yuusan muddayaan loo samaynin musaaqaadkana wuxuu yidhi waa in muddo loo gooyo muddada waxaa lagu xadidayaa waa muddada sida qaalibka ah midhuhu go'o sooma garan sooma geedahan waa la waraabinaysaa waa ka shaqaynaysaa waad falaysaa muxuu ahaaye waad u taagan tahay aniguna geedihii beertii baan leeyahay goormaynu kala baxaynaa waa la qiyaasaya xilliga midhuhu go'ayaan soo maha muddo marka waa in loo sameeyo ayib
والثاني شرط لبادي وحوي أن يعين وإنه عينه وإنه مقعابه للعامل نينك بيرتك الشقين جزءا قبل وإنه مقعابه معلوما أول يقانو ومن الثمرة مدها قيدها كمذا مدها قيب كمذا وإنه مقعابه بمعنى وحلقه وذا سيدي أي مدها قيده صوص صاران وقيب سن لهايين وإن حد هاي لبدو أوجيهين geedka midhaha saaran baana la qaybsan oo midhaha soo bixi doona ayaan qaybsanaynaayo adiguna gabal baad leedahay anna qayb baan leeyahay oo sidee ah tii qiraadko kale la mid tahayo nis baad leedahay boqolkiiba inta annana boqolkiiba inta thuluth baad leedahay rubuc baad leedahay nis baad leedahay anna inta kale leh waa in sidaa lagu xadido wixii soo go'a oo midhaha inay saa u qaybsadaan طيب أن يعين وإنه نينك بيرت مالكا أن يعين وإنه مقعابه للعامل نينك بيرت كالشقينية جزءا قبل وإنه مقعابه أحدده معلوما أولا يقانو من الثمرة ملها كمل يعني ثلث ربع وهكذا ثم مركا كدبوري العمل كالشقين فيها مساقات كاللغا شقيه على ضربين لبن نوعوي مركا لبضع شرطي كارتا كدب شقدوا لبن نوع shaqada say u kala leeyihiin waa shaqada beertan laga qabanayo geedaha waaweyn ee midhaha laga goosan doono baa laba nooc ah labada noocna way kala leeyihiin shaqo waxa laga rabaa ninka geedaha leh shaqana waxa laga rabaa ninkan ka shaqeynaya labada shaqo kala saari rabaa marka wuxuu yiri thumma marka kadib al-amalu shaqada fiha musaaqaadka laga shaqeeyay ala darbayn laba nooc way عمل عمل يعود عمل عمل أو يعود النقنية نفعه عمل كان نفع جيسو إلى الثمرة مرها النقنية فهو كاسي عمل كاسي على العامل إنك شقين يكر كيسا هذا شقاء الله بنيسا نفع جيدا يفائدة ديدو مرها الله بنيان مثلا المحاكم ده يا حاجمده يعني جيدوه إني ميروه إني صوبحان إني هجاجان عملك النقطة يمحوه ورابين تبا كمده صوما ورابين تبا كمده فليد تبا كمده صوما بعرمين تبا كمده حيو النقطة يان ميرها عمل كانت سمينا يساي ميروه النقطة يا مسل حديث منفعته وحيو النقطة يساي ميرها تايا لقربا على العامل يا نينكن حوكسدها ما laga rabaa طيب وعمل عملنا يعود نقونيا نفع نفعيسو وحو نقونيا الى الارض دلكو نقونيا فهو كاسي على رب المال حولها نينك اسكله با كاس iyo korka ka saareen shaqada geedaha laftoodii dhulka u noqonaysa waxa laga rabaa nin kale ee xoolahan iskale oo beertan iyo geedaha iskale طيب مثلا waxay noqon kartaa مثلا يعني dhulka waxa uu noqon kara مثلا dhulka in darbi lagu wareejiyo u baahday in darbi lagu wareejiyo iskale shaqada ya rabul maalka iskale طيب مثلا wuxuu u baahday in ceel loo qodo wuxuu u baahday in wabi loo sameeyo ama keli loo soo jeexo yaa laga rabaa rabul maalka laga rabaa لأنه وحون نقول يا دولكي وحوب هذا مثلا إن يريد الله سماه وحوب هذا مثلا يعني آلدن عيلك كوتشرتي الصوصار تبيه إن الله سمشينك يا لجربا رب المال كا لجربا لأن وحوي الشقداسي وحيون نقول يسار دولك مدها توصل ما هذا ساس يوكل عليه المرك طيب فصل وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ألقى وحكاك ذا قال إجارة إجارة نوحل إلى هذا بيع المنافع يعني وركان كتاب قال بيع سوب الله بيني يا وحن صوش يجني وحل القضاي أما وأعيان أما ومنافع صمح أما وشيء لتابن كرو موقدة ولا محوها عينه أما وشيء أن لتابن كرين لكن منفعه
marka bay'ul manaaficda waxa weeye waa ijaarada kamid kirada guri la kiraysto gaadiid la kiraysto Soomaaliyeed ayaa kamid tiibu ka hadlaya wa kullu ma amkana shay kasto ay suurowdo al-intifaa'u intifaa'si bihi isaga la intifaacsado ma'a baqa'i 'aynihi isagoo lafihiisi joogan saxad waxa asaxaysa ijaaratuhu in la kireeyo muxuu dhigay laba shardi Soomaa shaygaasi horta waa inuu shay la intifaacsan kareeyo manfaacadiisuna mubaax tahay gaadiid baa laga dhigtay waa manfaaco gurigii waa la degay waa manfaaco dukaankii waa la kireystay waa manfaaco Soomaaliyeed manfaaco horta waa inuu leeyahay shaygu haduusan manfaaco lahayn lama kireyn karo Soomaa hadduu manfaaco leeyahay laakiin manfaacadiisu xaraam tahayna lama kireyn karo manfaacada xaraamta maxaa kamid ah مثلا آلات اللهو وكله يا حيالها موسيقى لغو قراعه منفعه إليه لكن منفعه هو حرام صوما سيداس درادت منفعه دنا مباح وإنه شيء ليه كو طلبادي وحوي وإن السروبي كرتو انت منفعه لا انتفاع صدو لا فيه سي إني تشوغيا عم ايش أكبحيه حدوبا منفعه يلفوه إسراعيا وحبا كسو هرين لما كيرين كرو يا صوما مثل لو حتري محو هاي 20 كيلو بريسكا ايان كاكري ومعان كوفل يعني يا صوعني ميس هو تكتيبه عينتي لغا كريه تكتيبه لا مره marka waa inay cayntu joogto intifaacuna la helo saas macna صحت marka waa asaxaysa ijaaratu in la kireeyo marka waa asaxaysa ida goortii qudirat la qadaro way manfaatuhu manfaadiisa lagu qadaro bi ahadi amrayni laba arimood midkood waa in lagu qadaro manfaadan shayga lagala baxay laga kireynayo laga iibsanayaa waxa lagu qadari karaa laba jid mid baa lagu qadari karaa laba arimood mid baa la mari si loo qadaro loo qiyaaso bi muddatin muddo in lagu qadaro aw amalin ama shaqo in lagu qadaro muddadu maxay noqon kartaa mesela manfaacada markay qadarkeeda jaahil laga yahay waxa lagu qadaraa muddo mesela waxa kamida guriga degitaankiisa guri in laga kireeyo soo manfaaca ma manfaacadaasi lama garan karo qadarkeeda iyo qiyaasteeda daabid iyo xad looma heli karo sidaas daraadeed mudda loo sameeynaya sooma mudda lagu xadidaya guriga waan ka kireeyay dukaankan waan ka kireeyay kiradiisuna waa 30,000 waa 40,000 طيب muddo bil ah muddada bil usaa kaaga kireysan bil kasta waa inta ama sanadkii waa inta mudda marka lagu xadidaya manfaacada taasi waa طيب waxa la mid ah midalan misaalo badan bay leedahay laakiin taas ay inaga filan ama amal baa lagu xadidaya oo markay midalan manfaacadu ay macluumato la garanayo markaasi wax weeyaan shaqo xadidan buu ruuxani ku qabanaya al-ijara ala al-amal waay oo midalan waxa leedahay muxuu ahaay waxa leedahay ninkan dhartolaha intaad u timaado baa waxa leedahay maradan iyo tol sooma maradan iiltol meeqaan kuugu tola waxaad iigu toshaa 10,000 marka ijaarada manfaacada ruuxan aad ka iibsanayso maxaad ku xadiday amal baa lagu xadiday marka sooma shaqo uu qabanayo ah inuu marada tolo sooma waxa leedahay mesela oo iyadana dhici karaysa baabuurkan aan ka kireysanaya baabuurkan ayaan ka kireysan laakiin ama waqti baad ku xadidi ama meel baad ku xadidi ilaa Mombasa ku tagahaya khalaas Mombasa hadad ku gaadho wixii kiradiisii waa inaad bixiso marka waa in amal lagu xadido ama muddo lagu xadido manfaacadan la kala iibsanayo waa in labada mid kamid lagu xadido طيب hadii labada mid la waayo manfaacadii la kala iibsanay majhuul bay noqonay jahala galaysa marka muran iyo qatacba ka dhalan wa itlaaquha buu yiri ijaarada markii la itlaaqo hadan
waqti loo samaynin muddo loo samaynin itlaaquha siidaynteedu sharti laga siidaayo oo waxba lagu xidhin yaqtadi wuxuu keenayaa tacjiil al-ujrati ujrada in la soo dedejiyo kirada in la soo dedejiyo oo hoy laga bixiyo illa an yashtarita inuu shartiyaysto mooyee at-ta'jiila dibdhigid inuu shartiyaysto mooyaan mustaajirka ka kiraysanaya inuuba dibdhigi shartiyaysto mooyaan oo aqdiga marka horeba sharti ka dhigta mooyaan macna waxa laga wadaa waxa su'aashu ka taagan tahay kirada goormuu mudanaya ruuxii iska lahaa cayntan la ijaaranayo ruuxii lahaa kirada goormuu xaq u yeelanaya haddaan waqti loo samayninoo heshiiska la wada galo kirada kala kiraysiga iyadoon waxba lagu xidhin sidaa lagu sameeyo markaa heshiisku dhacaba yuu ruuxani kiradiisii mudanaya waa dadajis markaa soo ma tacjiil waay laakiin hadduu lagu heshiiyo oo codsado war bil kadib iiga dhig 15 bari kadib iiga dhig markaa oo sidaa lagu heshiiyo markaa waa okay haddaan waqti loo samaynin kirada la kala qaadanayana waxaa caqdiga ka dhalanaysa in la dedejiyo caqdigu wuxuu keenayaa sidiisaba kirada inaad soo hormariso oo soo dedejiso haddii aan sharti meesha la dhiganin oo dibdhigeeda aan laga wada hadlin wa itlaaquha ijaarada siidaynteeda sharti laga siidaayo oo yaani wax way waxba aan lagu xidhin yaqtadi wuxuu keenayaa ka laazimaysa tacjiil al-ujrati kirada oo la soo dedejiyo illa an yashtarita inuu shartiyaysto mooyaane at-ta'jiil dibdhigid inuu shartiyaysto mooyaane oo marka hadii shartigiisa Allah oo kala hadday waqtigaad ku heshiiseen baad kiradii mudanaysaa way macna طيب يعني markuu bisha ka kiraysto bisha bilowgeeda yaa asal ahaan kiradu laazimaysa manfaacadan adiga intifaacso laakiin isoo hormari kiradii laakiin hadaad kula heshiiso bisha aakhirkeeda yaan ku siinayaa ii diblig haduu ku dhawaad heli kartaan markaa wala tabtulu maburayso al-ijaratu ijaradii maburayso kiradii wax la kala kiraystay ama xoogii ruuxaad kiraysatay ama waxaad kiraysatay gaadiidii waxbaad kiraysatay ama muddaad ku kiraysatay ijaaradu ma burayso bimawti ahad almutaaqidayn labada heshiiska wada galay midkood dhimashadiisa ijaaradu kuma burayso soomeyna soo barin uquud farabadano fasakhmaysa haduu labadooda midkood dhinto uquudda noocaas waxa loo yaqaanaa uquud jaa'iza waa laakiin aqdigan ijaaradu waa aqdi laazima laazimka maxaa la dhahaa muddada lagu heshiiyay labada ruux midna kama bixi karo aniso gurigan sanad kaama qaadan soo 10 sano kaama kiraysan heshiis meena ku wada galin muddada aan ku heshiinay adugana laazim bay kugu tahay kama bixi kartid anna kama bixi karo hadii ay noqoto inaad ka baxdo waa in dib la isugu soo noqdo la wada hadlo markaasi ay noqoto iqaala iyo muxuu ahaay wada hadal dambe yimaado laakiin aqdiga waxa ka dhalanaya luzum baa ka dhalanay hatta haduu midkood dhinto dadkii dhaxalkiisa lahaa booska soo galayo xaqi u istaagay laakiin aqdigi wali waa shaqeynaya طيب هي الإجارة ومن العقود اللازمة ولا تبطل مبرس الإجارة بموت أحد المتعاقدين لبدا هشيي هشيس كورا قالي متكود لمشديسة سببت عقد قاسكم مبريو إجارتكم مبريس وتبطل ويبري وتبطل ويبريسا بتلف العين عينتي باب إيديدا المستأجرة إلا كريستي عينتي شيء إلا كريستي هدو باب دينتو أما هلاك سمو مركا إجارة وبريسا مثلا قري بالغا كري قري باب الدميبة لك لا كريستي مركاسي إجارة وبريسا سما بابور بالغا كري بابور كي باب بايبا إجارة وبريسا ماشي هشيسكو كل عي شيء لك لا كريستي لفهانتي سهدو بابو أو انتفاع كبحه مركا هذا دماتي ماشي يعني بوسكي هشيسكو بكرنا كل عيبة معناها ماشي كبحيوه ولا ضمان دي مأهن على الأجير متك الله كريستي كركيسة أما الله شقاليستي كركيسة ضمان دي مأهن إلا بعدوان حد قذب مويه روحا آد شقادة أدرست
ama kaa kiraystay ama meehe aad shaqada u dhiibatay oo shaqo kuu qabanaya ajiirka ah gacantiisu waa yadu amaan saas daraaddeed waxaanuu kaa qaatay hadduu ku xadgudbo ama ilaalintii looga baahnaa ka gaabiyo sidaana wax ku yimaadaan wuu damaani haddiise isagoo dadaalayay ay musiibo ku dhacdo markaasi kuma lihid saas macna walaa damaana cala alajiiri ila bicudwaanin xadgudub mooye si kale ku damaani maayo laanna wax weeyaan waa amiin waay macnaha ayib faslun waljacaalatu jacaaladii jaa'izatun iyadana way bannaan tahay jacaaladu waxay ku agdhowdahay ijaaraday ku agdhowdahay marmarka qaarkood waxay kaga gedisan tahay axkaamta qaarkeed bay kaga duuntay jacaaladu marmar bay majhuul geli kartaa shay majhuula oo maalan waxa weeye inaad tidhaahdo baadidaydii luntay ninkii soo hela ya intaasuu igu leeyahay waxaasaan siinaya jacaala la yidhahda shaqada uu qaban doono si uu baayida u soo helo shaqo cad maaha soo ma inuu soo heli doono iyo inuu waayi doonona shaqo cad maaha dhankaan nooc jahaalaa kaga jira soo ma laakiin waxa aad siinaysa hadduu soo helo waa inuu cad yahay jacaaladu marka taasaa la yidhahdaa waa shay yani waxa way ruuxii waxaas ii sameeya waxaasii ugu leeyahay waxbuu kuu qabanayaa marka waljacaalatu jaa'izatun waa bannaanta wa huwa jacaaladu waxa way an yashtarita waa inuu shartiyaysto fii raddi daallatihi baadidiisii soo celinteeda waa inuu shartiyeeyo ciwadan shay bedel ah macluuman oo la yaqaano shay bedelahoo uu dadka ka siinayo ama uu siinayo oo la yaqaano ayuu wuxuu shartiyaynayaa baadidiisa ciddii u soo celiso u shartiyaynaya an yashtarita waa inuu shartiyeeyo fii raddi daallatihi baadidiisa soo celinteeda ama mara u tolitaankeeda ama ruux u daawayntiisa ciwadan waa inuu shartiyeeyo bedel ciwadku waa waxa yani wax weeyaan waa waxaad wax ku bedelato dhan baa ciwad la yidhahda lacag hadduu yahay dhar hadduu yahay raashiin hadduu yahay wixii shaqadan aad qabatay lagaa siiyey ama aad shaygan ku bedelato dhan baa ciwad la yidhahda macluuman oo la yaqaano halkaa wuxuu ka wadaa hadday jahaala gasho lama ogolaa hadduu ku yidhaahdo baadidaydii luntay ninkii soo hela wax un baan siinahayaa ma soconaysa berri hadduu baahidii keenoo tidhaahdo shilinkan qaado isaguna ku yidhahdo war boqolkun baan ku xisaabtama soo qoorta isla geli maysaan saas daraaddeed waa inuu ciwadka uu macluum yahay ayib faidaa raddahaa markuu soo celiyo baadidii luntay hadduu soo helo soo celiyo istaxaqa markaa waa mudanaya daalika alciwada bedelkaasi almashruuta ee la shartiyeeyey bedelkaa shardiga looga dhigay iyo manfacadaasi shardiga looga dhigay buu marka xaq u yeelanaya hadduu baadidii keeno oo uu soo celiyo macna ayib waxay u daliishadaan xadiidkii nebiga sal alla alay wasalam baadi kuma imaanin laakiin waxay ku timi daaweynta saxaabada qaar ka mid oo socota safara waa kuwii reer gaala ah soo maray warna marti soora safar baan nahay way ka seexdeen markay ka seexdeen habeenkii odaygii reerka ugaaskii ama suldaankii unbaaba la qaniinayba hadday ku tufeenoo wax kasta isku dayeen waa daawoobi waaye cabaadkiisaa baxay war bal nimankan martida ahee agteenna caawa ku gaajaysan bal nin wax tufa aan ka raadinno waa loo yimi war nin baa nalaga qaniinee nin wax tufa ma idinku jira nin saxaabada yidhi anaa tufi buui laakiin waadna qadiseene walla inaana idiin tufaynin buui alaad wax noo sheegtaan wax sheega maxaad ogoshiid soddon neefoo adhiya wuu tegey marka suuratu alfaatixuu ku soo akhriyey markuu ku akhriyey waa gaal markuu ku akhriyey waxaad mooddaa xanuunkii siduu uga fuqay seeta ku xidhnayd iyo dabar in laga sii daaya aad mooddaa soddonkoodii adhiga xayntoodii bay soo kaxaystay markay soo heleen bay iyagii ku murmeen war waxaan aan samayna ma xalaal baa mise waa xaaraan war seen yeella nebigaa loo tegey sal alla alay wasalam markaasuu nebigu sal alla alay slam ruqsayey almuhim waxa weeye
حديث كاسا كميد جعالة وحيالها لو دليشده لأنه صحابته waxay qabanayaan amalkan ay qabanayaan ninkani ma daawoomi doono shaqaday qabanayaan waa tufmo waxay ku helayaanna waa jucaaladii waa wixii loo sheegay waxa kada kaasay u dilshada faslun wa idha waqa'a ila rajulin ardan wa idha dafa'a wa idha qorti dafa'a u dhiiba ila rajulin haqi ardan dul hadu u dhiibo liyazra'aha si u beero oo sharata uu shartay lahu isaga juz'an qabal ma'luman oo la yaqaano min ray'iha wax soo saarkeeda kamid lam yajuz ma banana tayib halkan musaaracada wax leeyahay ka galaya musaaqaadka soomeyna soo marin musaaqaadku waa geedaha timirta iyo cinabka oo ninna geedihii uu leeyahay ninna waraabinaya musaaracaduna waa isla beerasho waa beeraha yar yarka qamandida iyo bariiska iyo galeyda iyo masaga yaryarta iyo Soomaalida kuwaas baa laga wada shaqaysanaya see loo shaqaysanaya nin dhulku leeyahay ninna waa beeraya Sooma waa abuuraya waa ka shaqaynaya waxa ka soo baxana way wadaagaya musaaraca leeyahay Shaafiiciyada agtooda musaaracadaasi ma banaana يا مزارعة اسمه بنان وحيد مركا وإذا دفع هدو أديبه إلى رجل إن هدو أديبه أرضا دول أديبه ليزرعها سوء بيره وردول كان أنا إسكالها بير بوكويد أو شرطه شرط له إسكال نينكا أدولك أديبه كشقينيا أيا وحو الشرط أقد جزءا قبل معلوما أو لا يقانه ثلث أما الربع أما النص أو من ريعها وحصوصار كذا كمل dhulka wax soo saarka kamid rayca waxa la yiraahdaa waa income-ka waa dakhliga ka soo baxaya beerta ka soo baxay midhaha ka soo go'ayo midhaha ka soo go'ayana boqolkiiba intaas aad leedahay dhulkiina waa kaase beer dhulkiina waa kaase beer tayib markaasi wuxuu yiri lam yajuz ma banaana tayib marka ma banaana laba mid bay noqon marna beertaasi muxuu ahay waxa lagu beerayo waxa midhaha lagu beerayo ee abuurka ah mar waxa bixinaya ninka dhulka leh marna waxa bixinaya ninka shaqaalaha shaqeynaya beerta ka shaqeynaya abuurka keenaya labadooda midna musaaraca la yiraahdaa midna mukhabara la yiraahdaa maxay ku kala duwanayaan musaaracada waxa la yiraahdaa marka abuurka uu bixinayo ninka dhulka leh abuurkii isaga bixiyay kana waa abuuraya waana ka shaqeynaya marka waxa la yiraahdaa musaaraca hadduu abuurka keenayo ninka shaqaalaha beerta ka shaqeynaya isagu abuurka keenayana oo abuurkii shaqadii isku darsanayana mukhabara la yiraahdaa labadaba Shaafiiciyada agtooda ma banaana sida uu inoo qoray macna tayib lam yajuz ma banaana saasu inay tayib ahadith ay u daliishanayaano ku soo aroortay oo macnaha ay ka qaateen tayib wa in akrahu haduu sakireeyo iyaha beerti haduu kireeyo bidahabin dahab haduu ku kireeyo aw fiddatin fiddah haduu ku kireeyo beertiiba lacag buu ku kireeyba war beerta beero anigana lacag isii sooma lacag go'anisi oo beerta kiraa beertina waxaad ka hesho adigu beero dahabkiiyo fidadu waa lacagtii la isticmaali jiray waxa la mid ah lacagahan hadda la isticmaalo haduu ku kireeyo haduu dhar ku kireeyo وهكذا أو أما سشرطه هدو شرطيه له إساق أشرطيه طعاما عنطو معلوما أو لا يقانو أو في ذمته قرتي سسارنو إساق الدين كوا جاز مركا وبناي يعني وحو دونا إنو كويدا هدو مدي هوري لو قلي وحوي beertan aan ka wada shaqaysano wixii ka soo baxana aan qaybsano taamaya laakiin haddaad tiraahdo beertan kira weeye iga kirayso lacag isii adiguna beero waxaad ka heshaba way banaanta waxa kale oo banaan inaad tiraahdo beertan in aan wada beerano ka shaqee
laakiin aniga waxaad igu leedahay raashiin go'an oo beertu ama ha bacdo ama ha baxdo ama waxa laga helo ama yaan laga helin wax go'an baad aniga igu leedahay raashinkaana qoortaydaad ku leedahay sooma mesela waxaad tidhi 50 kiilaad aniga igu leedahay laakiin beertaa ka shaqee 50 kiilo beerta inay ka soo baxday inay ka soo bixinayo muhiim ah tii hore maxay ku kala duwan yihiin tii hore waxay ahayd beerta waxa ka soo baxaya la wadaagayay tanna maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay ninka wuxuu siinayaa raashin iyo cunto kale oo laba goroba isaga uu ku yeelanayo oo lacagtii markaa la mid Soomaaliya inuu lacag kaga kirayo inuu raashin isaga uu ku yeelanayo kaga kirayo waa isku mid laakiin beerta waxa ka soo baxay aan wadaagnay ka shaqee maya taas lama ogola waa sidaasi waa sida sheekhu inoo dhigay طيب laakiin muxuu ahaayay sida ay rajaxayaan ay mafra badan oo aymada shaafiiciyada kamid waxay leeyihiin way banaan tahay musaaracadaasi way banaan tahay imaam an-nawawi baa kamid ragga rajaxay oo wuxuu leeyahay axaadiista marka la isu geeyo waxa laga qaadanayaa in ay banaan tahay isla beerashada noocaas ama abuurka ha keeno ninka dhulka leh ama ninka ka shaqeynaya ha keeno musaaracadu inay banaan tahay buu rajaxaya aymada xadiidka shaafiiciyada rag badanna sidaas ay rajaxayaano uu kamid yahay ibn khusayma iyo ibn al-mundir iyo khatabi iyo rag badan oo shaafiiciyada muhaddisiintooda kamid ah rajaxay waxay leeyihiin waa banaanta suurada aan banaanayn waxa weeye axaadiistana ku soo aroortay in aad dhulka aad tiraahdo beer dhulka inaad qaybiso dhulka inaad qaybiso tiraahdo dhulka intaana aniga ii beer intaana adigu beero taa lama ogola kirada ujuuradii aad aniga ugu beeri lahayd dhulka iga shaqayn lahayd dhulka u qaado oo beero taa lama ogola maxaa loo ogolayn laana waxa dhici karta inay tiisu bacdo tanna baxdo sooma ama midani baxdo taana bacdo waa nooc khamaara midba marka wax la'aan inuu ku soo dhacay dhici karta taa lama ogola laakiin aan isla baqtiyaan nasiibsanno waxay la mid tahay mudaarabadii alaabtii ganacsiga ahayd ee faa'iido laga wada raadinayo kale la mid ama waan isla waayeynaa waan isla khasaaraynaa ama waan isla faa'iideynaa marka suurada la diidan waa tan dambe ama musaaracadu ala sahih waa banaanta faslun wa ihyaa'u al-mawati dhulka maydka ah nooleyntiisu jaa'izu waa banaanta bi shartayn laba sharti bay ku banaanta mawaadka waxa la yiraahdaa waa dhulka aan camirnayn dhulka aan camirnayn ee la lahayn ee la isticmaalin ayaa mawaad la yiraahdaa dhulka noocaas oo kala ah see loo nooleeyaa see lagu yeeshaa see lagu milkiyaa dhulku asal ahaan markuu iska cidlaya ninkii u soo horeeyaa iska leh aadamahaas uu ka dhaxeeya sideed ku yeelan kartaayo dadka kaga yeelan kartaayo ku milkin kartaa tana laga hadlaya waa hawshii dawladda hoose Soomaa hawshii dawladda hoose waa ilaa waxa laga hadlin ma jiri dhul see lagu yeeshaa طيب وإحياء الموات دولك ميدكين عيدنا لهاي نولينتيسو جائز وبنانتها بشرطين لو شرط بيكو بنانتها شرط كوبادي وحوي أن يكون وإنه المحيي ميدك دولك نولين يا مسلم وإنه مسلمي كوري كدي سنة بيرك السماء سنة نولين وإنه مسلمي طيب وحكاها الليان دولك مسلمين تدقنايين كيليغوت دولك مسلمين تكيليغوت أي دقين يقع اسكاله صوما مركا وإنه مسلمي وأن تكون وإني تهي الأرض دلكنا وإني تهي حرة مد مدح بنان ومحيئة لم يجري أوسن دريرين عليها كوركيدا أوسن كدريرين ملك لهان شاء لمسلم مسلم أصبناه دلكاسي وإنه دل حر أيهاي وعد مسلم وكاقه الرئيسو ملكي دي وإني سنجري ملك مسلم وإنه سن كدريرين وكدل صعنين وسن كاقه الرئين طيب مركز الله ليسن كرت طيب سيكون نوليسان وصفة الإحياء قابك نولينتا صفة يقابك دولك لغو نولياي ما كان وحي أهادي في العادة سيدة عادة عمارة عمرد
للمحيا دولك الله نولين يلا عمري عادة إيا عرفك بني آدم كي قوليسا نولينتو سوما ذكرا محالة قوة نولينتو إيا دولك اللقو ملكينا ياي بني آدم كو عرفك يسي عادة ديسا أرنتها كو آدم وإسبت بدليسا وقت النبي قاب هاي صلوات ربي والسلام عليه دولك أما وحكر لسو أما بير كسميسو أما وحون كسمي لكن تاشيق لازم ماهي waxay u laabanaysaa bini aadamka marka jiriya nidaamka meesha ka jira waxay u yaqaanaan noolayn yaa noolayn noqonay cirfiga loo celi laana sidaas weeyo wax kasto shariicadu ayna xad u sameeynin cirfiga bini aadamka loo celiya cirfiga isbedelayo isla bedelaya marka ya hadda maxaa loo yaqaanaa marka ya hadda waxa loo yaqaanaa inaad wixii u samaysato document u samaysato soo saasma ha nidaamku inuu document ku siiyo subar looga u qaadato title deed u qaadato tala loo yaqaan sooma curfigi marka waa isbedel waxaad arkaysaa dhul dhaan arla ilaahay oo iska cidla nin baaba iska laba sababtu maxay tahay sharci buu haysta marka taasi curfiga u laabanaysa wixii curfigu noolayn u yaqaaniya lahaansho ayaa noolayna طيب ويجب وحا واجب بيقول بذل الماء بيها بحنتوضا بثلاثة شرائط صدح شرط بيكو واجبيسا ماشي وحا لا يمد بياد هيستا بيهنا والو باهيه يا magaalo lama jooga ama magaalo wala dhul biyo looga baahan yahay la jooga adigana biyaha haysata biyihiina dad baa u baahan ama xoolo u baahan noola u baahan biyaha maxaad haysan kartaa maxaase laazim kuga inaad bixiso taasu ka hadlay ويجب وحواجب يبذل الماء بيها بحنتوضا بثلاث شرائط صدح شرط بيكو واجبية شرط يكو وحوي أن يفضل وإنه كبته بيها سوائن كبتان عن حاجته روح باهدي سوائن كبتان وإن كسو حرام باهداد طيب يعني نفط هذا أباهن أما بيرت هذا أباهن أما حولها أباهن نولها أما ذيك أما نولك وحدا باهدي سوائن كسو حرام كو وأن يحتاج وإنه أباهده إليه بيهاس غيره عدان إساق أهين روحك عنتي سأيكوشران روحان أهين وإنه أباهده لنفسه كاسي نفهانتي سإنه أباهده أو أما سلي بهيمتي أما حوله سأباهده عد كلون أديق أهين وإنه أباهده أما لفهانتي سأساقها أباهده عبتان استعمال كالي راشين كوكرس أما حوله سأباهده وحوله واكا أومن شرط قال الله واكا لبادوه طيب فهنو هذي النف إيا النف نقطه وحي النفط هذا كالسيادة نفتك لي آدمها وينات سيسو وحي حولها مركاد ورابيسة كالسيادة النقضنا حولها كلي بني آدم كأوبها وينات سيسو حولها كلي وينات سيسو سيداسو معنا وحي بيرت هذا كسو هذا بير يا بير مركاد نقطنا بيرت هذا هور مرساني بيرت هذا مركاد وروسته وحي كسو هذا بير حدثك كلات سيني طيب وأن يكون وإنه يهي بيهاسي مما يستخلف وحلق خليف نقضه وح بدل كيسو إيمانيو وح إساق بدل كيسو إيمانيو في بئر عال أو أمس عين إل بيهاسي وإنه يهين بيو مركي آد بحسو بدل كودو ماشي سوق لي ويسمى حنيان مثلا وعيل سمى حني أما وائل مركات بحسابيه هذو أي يعني بدل كي ماشي بيكل سوق ليه هيديهم بيا أنا سوق ترينين بقى أو مركات بحساب بدل كود وسن سوق لين ماشى لازم كوجما إلى بحساب بيا ويل كوجو تشرو كلا مثلا ما أحب أذكر ده ما بركت بيكوجو تشران مال يرو كوبان بابد كويس ستا تانجي بيكوجو تشران فيها نوع سوكلتا إناد بحس لازم كوجما هبيني صابت وحوي أديجي باوباهن دونا صما وحينا واحد يبكى سكر ليما وبالتالي لازم كوجما نقنص شروط سودية طيب وأن يكون وإنه يبيها مما يستخلف كوأي يعني بدل كود بيكلا سوكلا مما يستخلف وحلا بدل نقضه وبيكلا أي كبدل نقضان ويبوس كود سوكلا وين يهين في بئر عال دحدي أو عيننا أما إل دردريس
saddexdaa sharti haddii la helo biyahaas ma haysan kartid waa inaad dadka beeraha dunyada waa inaad u fasaxdo maxaa yeelay xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam baa soo aroortayo ruuxa biyaha siyaadada ka adiidaayay isagana ilaahay baa fadligiisa u diida saddex dadkay ka dhaxeeyaan waa kii xadiisku ah ya daaqa iyo dabka iyo biyuhu dadkay ka dhaxeeyaan shurakawa waa wax dadku shirka ku yihiin sidaas daraadeed wixii baahidaada asaasiga ka badan adigu ma malihida dadka iskale aishani faslun wal waqfu waqfki jaiz wa banaya bi thalath sharaa'it sadh shardi buu ku banaya waqfku wax weeyaan shaygan la fahantiisa in aad waqafto oo ilaahay aad u xidho la fahantiisa cidina ma isticmaali karto laakiin manfaacadiisa ayaad cid siisay waqafku waa sida waqafku shayga la fahmaalkan laftiisa waad xidhay la fahantiisa xabsi baad geliso ilaahay baa leh waa masjid waa meel wax ka soo baxaan waa madraso waa beer wax soo saaraysa lafaheeda haddaad tiraahdo waa waqaf bimacnaa cid gooniya lahaanshihi way ka madax bannaanta cidina kuma tasarufi karto wixii ay soo saartana jihadii aad adigu ugu talagashay baa lagu bixinaya meeshii aad u waqaftay ayaa lagu bixinaya walwaqfu waqafki jaa'isun waa banaaya waa saxiix weeye bithalathi sharaa'it sadh shardi buu saxiix ku yahay an yakuna wa inuu yahay waqafkaasi mimma yuntafacu bihi wax la intifaacsado maca baqaa'i aynihi isagoo lafihiisu joogaan shayga waqafka gali kara waa in shaygiioo jooga oo lafihiisii joogaan manaafacaad uu leeyahay oo la intifaacsan karo oo markaa intifaacaade la qaadanaya lafihiisuna baaqi bay ahaayeen waa joogayaan sharti waa wa an yakuna waa inuu ahaado calaa aslin waqafku waa inuu yahay calaa aslin asal korkii waa in lagu waqfo mawjuudin oo jooga wa farcin iyo farac laa yanqaticu aan go'aynin cidda aad ku waqfayso asal bay leedahay waa cidda markaa nool cid nool oo aad ku waqfayso waa inay jirto cidda aad ku waqaftayna waa inay jirto farac aan go'ayninoo ka sii dambaynayo oo ka dhaxli doona oo maxaa laga wadaa macnaha haddii aad maalan aad tidhaahdo beertani ama gurigani ama dukaankani waa waqaf waa inaad sheegtay yaad ku waqaftay si caama waad ka dhigi kartaa waa waqaf ama waxaad ku waqfi kartaa jiha gooni ah waxaad tidhi maalan dalabatul cilmiga yuu waqaf ku yahay dadka cilmiga barta yuu waqaf ku yahay dadka cilmiga bartaay waa inay wax ka joogaan meesha kow midda labaadi dadka aad ku waqaftay waa inay sii jirayaan oo aynan go'aynin mar walba dalabatul cilmi soo ma jiraan culimadan ku waqfay waa markaa inay culimo joogaan kadana wixii waxaan dhammaanayn waa inuu mar walba la heli karo maxaa la diidan yahay waqaf intaad jiha ku waqafto inay daba go'do soo ma haddii ciddii aad ku waqaftayba ay gadaal ka dhammaanayso waqafkii meel cidluu ku soo dhici doona soo ma hadha waxay imaan doontaa xaggee loo leexiyaa marka sidaas daraaddeed asalkuna waa inuu joogo faracuna waa inuu sii jirayo ya ma la fahmo ayib yani cidda lagu waqfayo waa inuu yahay xiina marka la waqfayo waa inuu joogo hadhowna waa inuusan go'ayninoo uusan dhammaanaynin ayib wa an yakuuna waa inuu yahay calaa aslin asal korkii asalku waa meesha laga farcamayo asal waa in lagu waqfo mawjuudin oo joogo marka aan maqnayn wa farcin iyo farc korkii laa yanqaticu aan go'ayninoo weligii sii jiraya sida culimmada oo kale fuqarada oo kale yani masaajidoo kale mujaahidiintoo kale wax go'aya ma ah waa wax macnaha sii jiraya markaana waxun baa ka jooga macnaha ayib wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin waqafku fii maxduurin shay shareecadu diiday waa inaan lagu waqfin shay shareecadu xarimtay haddaad waqaf ka tagtoo tidhaahdo gurigaasi waa waqaf wixii ka soo baxa kaniisadaha lagu hagaajiyo
يا مصعوني ما لأن الجهاد تكون وقفتي بخلد هذا ترى هذا قريقاسي ووقف كيرada ka soo baxda dadka qaad ha loogu iibiyo ama sigaar ha loogu gado fasawris sabab maxay tahay laana wax way jihatul waqf wa muharrama shariicada diiday marka waa inay jihada waqafku ay tahay ay xalaalta waa inay shariicadu ogasho wa huwa isagu ala shart alwaqifi idda waqaftay shartigeeda korkeedu ahaaday idda waqafka bixisay shartiga iyadu u dhigatay ay ku bixisay uu ku soconay shartiga ku bixisay muxuu yahay oo min taqdiimin hormarin ah aw ta'khiirin ama dibdhigid ah aw taswiyatin ama simid ah aw tafdiilin ama kala siyaadin ah wixii shuruuda ninka waqafka baxsaday oo waqafkiisa u dhigay ayaa lagu wadayaa oo ama taqdiim ah midalan dad jihadan uu ku waqfay buu kala hormariyay wuxuu yiri caruurtaydu waqaf ku yahay laakiin caruurtayda midka ugu alla ka cabsiga badan ha lagu hormariyo midka ugu aqoon roon ha lagu hormariyo midka ugu faqiirsan ha loo hormariyo ha loogu dambaysiiyo midka ugu diin xun ama wuxuu dhihi karaa midka ugu tabaroon ugu dambaysiiya ka ugu tabar daran soo hormariya isaga shartiga dhigay sooma wuxuu dhihi karaa midalan dalabatul cilmiga diinta barataan ku waqfay laakiin dalabada xadiidka barata ha lagu hormariyo kuwa fiqiga barta ha lagu xiji kuwa luqada barta ha lagu sadeexeeyo isaga iskale taqdiimka iyo ta'khiirka wuxuu dhihi karaa ha loo simo si siman ha loogu qaybiyo waxa kale uu dhihi karaa ha loo kala badiyo soo saas ma kullu dalika isaga xaq u leh shuruuti waqafkiisa uu dajiyo baana lagu wadaya laba khilaafi karay saas weeyaa وهو على شرط الواقف نينك وقف كسميه ee baxsaday shardigiisa korkiisa ahaatay shardigaas oo min taqdiimin hormarin ah jihada uu ku waqfay la kala hormariyo aw ta'khiirin dibdhigida aw taswiyatin in la simo oo si siman loogu qaybiyo aw tafdiilin ama in la kala fadilo loo kala siyaadiyo fadal sheekh adanka وحيد وكل ما جاز وحكسته أو بنانادي بيعه إيبنتيس جازد وحا بنان هبته بحنتي سنة وبنانته يعني ماشي وحو كغدا غلاي
hibadu waa wax bilaash lagu siiyo dadka waxaa soo gudagelaysa sadaqada oo wixii asal ahaan ajir iyo aakhiro loola qastaa waxaa kaloo soo gudagelaysa hadiyaduna qasadka ugu muhiimsan ee looga qastaayo wax weeye waa nooc ikraam iyo ruuxaad siinaysaad ku maamuusaysaa inta badan baahi looma siiyo laakiin maamuus baa loo bixiyaa marka taa hadiyad baa la dhahaa tan kalena sadaqa la yidhaahdaa intabana hiba la isla dhahaa ayib marka axkaam bay leedahay wa kullu maa jaaza shay kastoo uu bannaan yahay baycuhu iibintiisa shay kastoo la gadi karoo la iibin karayo oo ama cayna ama manfaco ah jaazad waxaa bannaan hibatu hibayntiisaa bannaan in la hibeeyo oo la bixiyaa bannaan walaa talzamu ma laazimayso alhibatu hibadii ma laazimayso ilaa bilqabdi guddoomid mooye ayib waxaad go'aansatay inaad ama sadaqa bixiso ama hadiyad bixiso heshiisna waabaad ku gasheenba goormay laazimaysaayoo kaa wareegaysaa waa markuu kaa guddoomo bilqabdi guddoomid markay gacantiisa gasho markaa unbay laasimtay inta ka horraysa waad ka noqon kartaa waay soo ma niyo waxaan go'aansaday inaan hebel wax siiyo ama heshiis baaban ku galay inaan hebel wax siiyo ku sadaqayso weli intuusan gacantaada ka wareegoon uusan kaa qaadanin xaq baad u leedahay inaad ka noqoto lianna ma laazimayso ilaa uu guddoomo ilaa bilqabdi guddoomid mooye si kale kuma laazimayso walaa talzamu ma laazimayso alhibatu hibadii ilaa bilqabdi guddoomid mooyaan ruuxa gacantiisa inay gasho mooyaan inta ka horraysa ruuxii bixinayey xaq buu u leeyahy isagii inuu ka leexiyuu heli karaa inuu ka noqduu heli karaa wahaakada waidaa goortii qabadahaa hibada markuu uu guddoomo oo uu la wareego almawhuubu lahu kii loo hibaynayey kii lala damacsanaaye la siinayey loo hibaynayey markuu guddoomo gacantiisa ay gasho lam yakun ma ahaanin markaa lilwaahibi kii hibada bixiyey uma ahaaninoo uma bannaana an yarjica inuu ku noqdo fiihaa hibaduu bixiyey hadday gacantaada ka wareegto oo markaa la qaato inaad ka daba tagtood soo ceshato ma kuu bannaano markaa leanna waxaad noqonaysaa sida nebigu sheegay sal alla alay wasalam tusaale xun baad noqon oo waxaad noqon la mid tahay oo kale ey intuu mantagay eygiisa dib u cunoo kalaad noqoni waxaan u jeedaa mantagiisa dib u cunoo kalaad noqonaysa waxaad ilaahay dartii uga tagtay sidiisaba laguma laabto xataa dhulaad ilaahay dartii uga hijrootay dib looguma soo noqo soo ma xataa hadduu dhulku fiicnaado ilaahay dartii baad maalin uga tagtay soo saxaabadii maka ka hijrooday maka soo dhulka ilaahay uguma fadli badna saxaabadii ka hijrootoo maalinkay gaala haysatay ilaahay dartii uga tegey oo dhulkoodii ay ahaan jirtay waxaa lagu yidhi maadaama ilaahay dartii aad uga tagteen maka oo gacanta muslimiinta soo gashay dhulka ilaahayna ugu fadli badan ilaahay dartii baad maalin uga tagteen dib dambe uma soo degi kartaan soomaalit xataa haddaad xaj iyo cumro u timaadaan xajkaa iyo cumradaa markaad dhammaysataan kadib 3 beri maad sii joogi kartaan oo inaad ka tagtaan sababtu maxay tahay shay ilaahay dartii kaaga baxay inaad dabadabaysataaba khalad soo saas ma Soomaali baa laakiin waxa lagu hayaa dhulkan ilaahay dartii baan uga hijrooday khaasatan dadka qurbaha jira ilaahay dartii baan u hijroonaya beelay markaasaa la soo tagay xaajadu markay yara qadhaadhaatana waa la iska noqoni waa basaas waa hijroonaya haddana waa noqonaysa haddana waa hijroonaya haddana waa noqon saas weey marka ha ku noqonin waxaad bixisay marba hadduu gacan kala galay ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane waalidan inuu waalid yahay mooyaane waahibka wax bixiyey inuu waalid yahay cidda uu siiyeyna ilmihiisii yihiin mooye marka wuu kaga noqon karaa xadiidkaasaa u soo reebay oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam xalaal uma aha cid catiya bixisay ama hibe bixisay inuu ku laabto ilaa waalidku wuxuu ilmihiisa siiyey mooye isagu waa kaga laaban karaa wuu ka soo xishan karaa macna طيب واذا اعمر حدو عمري سيو ماشي wuxuu ka galaya laba mas'alo labada mas'alo waqtigaas la isticmaali jiray waana nooc hibada kamida laakiin shuruud siyaada bay wataan mid waxa way umra baa la yiraahdaa
waxay weeyaan alcumra waa inaad ruuxa aad wax siinayso ku dhahdo cimrigaaga yaa inta aad nooshahay yaan shaygaa ku siiyey haddaad dhimatana shaygii anigii ku siiyey buu ii soo noqonaya wuxuu noqon dhahayaa acmartuka waan ku cimri siiyey inta aad nooshahay baan ku siiyey haddaad dhimatana anigu ii soo noqonaya mucaamalo waa taa mucaamalo labaadna waxa weeyaan alruqba baa la yidhahdana ruqbadana waxa weeye waa korosho waa sugid oo wuxuu sugayaa yani maalkan ama xoolahan waan ku siiyey laakiin haddii aan kaa hor dhintana adaa iska leh haddaad iga hor dhimatana wuu ii soo noqonaya soo ma maxaa ruqbaa loogu bixiyey midba midka kale geeridiisuu sugahaya marka waa laysla koranaya ya waaba layshabaari marka qaar soo maa ilaahu dil boodhi siduu neef waxaan iigu xalaalo marka ruqba baa la yidhaahdaayo kolba kii hor dhinta hadduu kani hor dhintana kan hantidu ka soo jeeda hadduu hor dhintana hantidani ninkii lagu wareejiyey baa yeelanaya kama soo noqonayso hadduu kan la siiyey uu hor dhintana way soo noqonaysaa shardigaasuu ku bixiyey midda hore maxaa la dhahaa cumra baa la yidhahdaa tan dambana waxaa la yidhahdaa ruqba baa la yidhahdaa axkaamteedu inoo sheegaya marka mucaamalaad saas wax laysu siin jira see la yeelaya marka waydaa goortii acmara uu cimri siiyo shay-an shay buu cimri siiyey ruux see uu cimri siiyey intaad nooshahay yaad leedahay buuhi markaad dhimatana anigu ugu soo noqonaya inta cimrigiisa abuu siiyey aw amase arqabahu ama wuu la kortay wuu yani korosho siiyey saasaa le macnaa korosho siin yani sugid siin waay labadooda midba midka kaluu sugayaa geeridiisuu sugayaa siismadaa geeridiisa uu sugayuu ku siiyey haddii sidaa wax laysku siiyo kaana wuxuu ahaanayaa shaygii layscumri siiyey lilmucmiri kii la cimri siiyey oo cimrigiisa wax lagu siiyey baa iska yeelanaya aw amase lilmurqabi kii la korosho siiyey baa tan dambana yeelanaya lilcumra muxuu ka wadaa yani midda hore uu yidhi idaa acmara shay-an ya kaana lilmucmar waay midda dambe aw arqabahuna kaana lilmurqab waay midda uu cimri siiyeyna laba gooraba ruuxii la cimri siiyey baa yeelanaya midda uu korosho siiyeyna laba gooraba kii la korosho siiyey baa qaadanaya kama soo noqonayso waliwarahatihi dadkiisii dhaxalkiisa lahaabaa iska leh min bacdihi gadaashi muxuu ka wadaa bimacnaa soomaada dhin intaad nooshahay baad leedahay markaad dhimatana way ugu soo noqon kugu soo laaban mayso midkaad cimri siisay baa saa ku milkiyey hadduu isagu ka dhintana dadka dhaxalkiisa le unbay adig wax kugu soo noqonaya ma jiro kan aad korasho siisood geeridiisa sugayso asaguna geeridaada sugayana ayadana hadduu dhinto ama adigu aad dhimato waxba kugu soo laaban maayaane dadkii dhaxalkiisa lahaaba iyaduna aadaysaa intuu nool yahay isagaa leh hadduu dhintana dadkii dhaxalkiisa lahaa baa aadaysaa meeshaa waxaa laga macnaha ujeeddadu waxa waaye shardigan uu ku xidhay baa burayay shardigan anay ii soo noqonaysaa baa labada xaalaba burayay saas way macnaha sidaad ku bixisay weeye soo qorsho ma jirto xoolahaasay kaaga tageen saas daraaddeed baa xadiidka waxaa ku imanaya war xoolaha iska dayicina wax idiin soo laabanaya ma jira xoolaha iska dayicine ama si saaniyo raganimo leh wax u bixiya ama si saaniyo raganimo leh wax u haysta laakiin cimrigaagaan ku siiyey iyo waan isla koraynayo dhimashadayda fiirsaana dhimashadaadaan fiirsanahay war maaha warkaas ayib waydaa goortii acmara uu cimri siiyo shay-an shay uu cimri siiyo aw amase arqabahu uu korosho siiyo kaana wuxuu ahaanayaa shaygii lays cimri siiyey lilmucmari shay ruuxii la cimri siiyey baa iska leh aw amase lilmurqabi midkii la korosho siiyey baa iska leh waa midda dambe soo ma arqabahu bay u noqonaysaa lilmurqabta waliwarahatii buu u sugnaaday kii dhaxalkiisa lahaa min bacdii gadaashiisa asagu markuu dhintana
shaygan waxaa iska yeelanaya dadka dhaxalkiisa leh shardiga uu dhigtay ah oo uu isoo noqonayaana meeshuu ka baxayaa hada wabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi